الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وركا تلفزيونka qaranka oo idinkaga imaanayo xarunta telefishinka ee magaalada Muqdisho. Warka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Axmed Rooraye. Qodobada warka iyaga ugu door karoona waxa kamid ah kulanka baarlamaanada Afrika ayaa waxa uu ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyadoo Soomaaliya uu uga qayb galayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. gudoomiyaha aqalka sare wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqeen ganacsatada Soomaaliyeed in ay maalgashi ku sameeyaan dalka si uu u kobco wax soo saarka Soomaaliya. waxaa kaloo warka idinkugu haya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen tartan kubadda cagta ah oo lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada adduunka. akhbaaraadka caalamka ee daawadayaal telefishinka qaranka oo idin hayana waxaa ka mid ah keedadka dhiigga ee waddanka Yemen ayaa lagu soo waramayaa in ay ka idlaadeen isbitaalada dalkaasi iyadoo ay sii kordhayaan tirada bukaanada iyo dadka ku dhaawacmay dagaalada ka soconaya waddanka Yemen. intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka telefishinka qaranka. haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. aanu ku bilownay qodobka ugu horeeya warkayaga. kulanka baarlamaanada Afrika ayaa waxa uu ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyadoo kulankaasi uu Soomaaliya uga qayb galayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo la filayo in halkaasi uu ka jeediyo khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo khusaysa arrimaha waddanka Soomaaliya. faafahinta warkani waxa halkaas inooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Amiin Cabdullaahi Qorshe. kulanka gudoomiyaasha baarlamaanada dalalka qaaradda Afrika ee maanta ka furmay xarunta baarlamaanka Afrika ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, xogayaha guud ee golaha shacabka Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika Mudane Safiir Jamaal Maxamed Barrow. kulanka ayaa waxa looga hadlay arrimo muhiim ah oo quseeya dhalinyarada qaaradda Afrika sidii loogu diyaarin lahaa hogaaminta siyaasadda qaaradda iyo maamulka dhaqaalaha iyadoo loo siinayo fursadii ay kula wareegi lahaayeen howshaasi lagana saaciidayo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka oo la sheegay inay xaq u leeyihiin dhalinyarada ku nool qaaradda Afrika. xogayaha guud ee golaha shacabka Soomaaliyeed Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in kulanka diiradda lagu saaray muhiimadda awoodda dhalinyarada ee u leedahay qaaradda Afrika iyo kubcinta dhaqaalaha. ujeedada shirkan ahaa qodobkan ahaa sidii looga faa'iideysan lahaa dhalinyarada oo yani si ay dhaqaalaha u soo saaraan oo u wadaan in ma aragtay ayuu ka hadlayay. marka waxyaabaha la isla gartaba ah in baarlamaanada Afrikaanku ay sameeyaan nidaam siyaasadeed iyo ma aragtay nidaam siyaasadeed oo sugaya
iyo shuruuc ay sameeyaan oo sugaya mowqifka ama maqaamka ay leeyihiin dhallinyaradu. gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed boqolkiiba 70 in da'doodu ay ka hooseyso 30 jir halka boqolkiiba 42 da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 29 kuwa ay hor yaalla arrimo badan si loo gaaro halka ay higsanayaan. The proposal I am pursuing for the implementation in my country is to do this 3 ways. First, the establishment of youth brigades and deploy them in our various regions. Secondly, making our youth part of the conciliation and peace process. And thirdly, building their leadership capacity. gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo hadalkiisii wata ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada loo baahan yahay in garab laga siiyo dhinacyo dhowr ah si loogu diyaariyo mustaqbalka looguna wareejiyo hoggaanka dalka. shirkan ay ka qaybgalayaan afyeenada baarlamaanada dalalka Afrika lagu qabtay xaruntan magaalada Johannesburg ku leedahay baarlamaanka Afrika ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinta bariya waxa la filayaa in laga soo saaro qodobo dhowr ah oo muhiim u ah dhalinyarada qaaradda Afrika. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya xarunta baarlamaanka Afrika dalka Koonfur Afrika. mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxa ay ugu baaqeen ganacsatada Soomaaliyeed in ay maalgashi ku sameeyaan dalka si uu u soo kabco wax soo saarka dalka. hadalkan ayay mas-uuliyiinta waxa ay ka jeediyeen munaasabad maanta ay kaga qayb galeen hoteelkii lagu magacaabayay City Palace ee hadda lagu bedelay Royal Plus. faafahinta warkani waxa inoo haya wariyahayaga Cali Cabduqaadir Cali. qorshaha hiigsanaysa dawladda Soomaaliya oo ah in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay maalgashadaan dhulkooda iyo isbeddelka dhanka amniga ayaa dhiirigeliyay in ganacsato Soomaaliyeed ay ku tartamaan ka qaybgalka dib u dhiska iyo maalgashiga magaalada Muqdisho oo sanadihii ugu dambeeyay si xawli ah u socday. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, madaxweyne ku-xigeenada Jubbaland, xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen wasiirada arrimaha gudaha, gaashaandhigga, maaliyadda, arrimaha dibadda, warfaafinta iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dahafurayay Royal Palace Hotel City Plaza oo ay maalgashi ku sameeyeen ganacsato Soomaaliyeed. Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Lugu Dheere, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, ayaa munaasabada ka sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay doorka maalgashi oo ay leeyihiin ganacsatada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay si weyn u soo dhaweynayaan cid ka soo maalgashan karta caasimadda dalka. waxaan naga sharaf noo ah runtii ka gobolka Banaadir ahaan in aan mar walba garab taaganahay aan dhiirigelinayno horumarka dhinaca ganacsiga. waxay tusaale u tahay horumarka uu gaaray gobolka Banaadir maalinta ka sii dambayso. xarun qiimaha leh taariikh lagu leeyahay kulligeena maanta inta furkeedii aan isugu nimaadno oo gobolka Banaadir maanta runtii ay ka go'an tahay inuu dhiirigeliyo garab istaago horumarka ganacsiga noocan oo kale ah. insha Allah way naga go'an tahay inaan garab istaagno oo aan mar walba dhiirigelino kaabno sidoo kale aan tusno in gobolka Banaadir uu furan yahay sidii weligiis go'aan jira haddana aan sii jibaali doono in uu furan yahay horumarka ganacsiga nooc kasta ha ahaado. mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa bogaadiyay kaalinta ganacsatada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan horumarka dalka. halka inay noqoto meel dhaqanka Soomaaliyeed lagu ilaaliyo oo lagu koriyo sidaa la hadligeed waxaan soo jeedin lahaa magac Soomaaliyeed oo muhiim ah oo salkiisu noqonayo inay meeshani noqoto meeshii dhaqanka
soomaaliyeed lagu barbaarin lahaa inay noqoto. waxaa si wada jira xariga uga jaray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdulqaadir Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho. iyadoo maanta ay ku beegneed maalinta dhalinyarada adduunka ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka qayb galeen tartan kubadda cagta ah oo lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada adduunka. wariyaha iyaga ee arrimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Nasr Bashiir ayaa tafaasiisha warkan inoo haysa. ciyaarahan kala duwan oo lagu maamuusaya maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 bisha Agoosto ayaa galabtay lagu qabtay garoonka kubadda kolayga ee Wish Stadium magaalada Muqdisho waxaana ka qayb qaadanayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kala hogaaminaya kooxaha kala duwan sida kubadda kolayga iyo xarig jiidka. wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay ciyaarahan fudud waxaana ka qayb galay daawashadeeda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo boqolaal shacab ah si dhalinyarada Soomaaliyeed ula qaybsadaan maalinta dhalinyarada adduunka. xildhibaan Luulay Cabdi Aadan iyo xildhibaan Dahaba Zuuso oo kala hogaaminayay laba kooxood oo dheelayay kubadda kolayga iyo xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi oo dhammaan ka wada tirsan golaha shacabka ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka. waxaa laga faa'iidaysto dhalinyaradu waa xoogii dalka say dibdhisinta uga dib qaataana wacyigelin ha loo sameeyo mar walba. sidoo kale wasiiradda waan u mahadcelinaya waxaan leeyahay wasiir hawsha aad wadi waa hawl wanaagsan. dhalinyaro haddaad bannaanka jirtaan iyo haddaad baalayacna tarbiyada u fadhidaan dawladdii dhaqaaqda ee soo gaara meesha la taagan yahay waa u jeedaan nabad iyo nolol adduunka intaad joogtid qof walba meel kastuu joogo wuu u baahan yahay nabad iyo nolol. wuu ka mid ah wasiir ducaale waxaan kuu sheegaa ra'iisul wasaare maanta waxaa meesha ka soo kulmay gudoomiye taabit bahda isboortigaas ku yimid waxaan leeyahay soo dhawaada maadaama haween ay tahay aniga waxaan ahay ka mid gabdhaha isboortiga ekisa ciyaar jir gabdhaheena. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambaliyeeyay maalinta dhalinyarada adduunka. dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka joogaan gaar ahaan muqdishaawiyiinta waxaan leeyahay hambaliyo maalinta dhalinyarada adduunka. sidaa darteed waxaan rajaynayaa inaan si wada jir uga faa'iideynaa rajaynaa insha allahu tacaala. dad badan oo haddii aan kaftamo dhihi jira baroonia aqaana ama baaskada aqaana ma sheegaa magacooda laakiin maanta intaa lagu sheegayna inaysan waxba aqoon oo ay la fadhiyeen. wasiirka amniga gudaha xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaali iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriyo oo iyagana ka hadlay gabagabadii ciyaaraha ayaa xusay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay la qaybsanayaan maalinta dhalinyarada adduunka. ciyaarahan ay qayb ka yihiin munaasabadaha waaweyn ee loogu dabaaldegayo maalinta dhalinyarada adduunka. kaabayga joogo mudane ra'iisul wasaare ciyaarahan waxaa loogu talagalay in oo loogala qayb qaato munaasabadaha kala duwan ee lagu xusaayo maalinta dhalinyarada adduunka. kooxihii iyo shakhsiyaadkii ku guulaystayna gabagabada habeen dambe abaalmarinadooda la siin doonaa. waxaan u hambalyeynaa kooxda midnimo isla markaasna waxaan u hambalyeynaa kooxda nabad iyo nolol ay ku guulaysto xarajidka. marka aniga gudoomiyaha barbardhac baan nahay welila kan badan markaan tartami doona adduunyaa yidhaahda waa mahadsantihiin aad iyo aad ugu faraxsanahay. aniga gaar ahaan way taabanaysaa isboorti waa ka mid ahaa berisamaadka. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho. wararka kale ee telefishinka qaranka oo idiin hayana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan ay soo deyn doonto maxaabiista ku xiran xabsiyada dalalka Seychelles iyo India. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Yuusuf Garaad oo ka qayb galaya barnaamijka kulanka toddobaadka oo toddobaadkiiba maanta oo kale oo jimcaha ka baxa warbaahinta qaranka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay guulaha dhinaca diblomaasiyadeed oo ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya muddada kooban oo ay jirto. maxaabiistu
sida aan hadaya hadalkayga ku daray hordhici hore qaarna waa qaar ku jira dembiyo dalkan dembi ka ah waddanka ay joogaana dembi ka ah oo lagu hayo kuwaas haddii ay dhacdo in gacanteena lagu soo wareejiyo de xabsi ayay gelayaan qaarna waa qaar aan dembi soomaaliya ka gelin dembi caalami ahna aan ku jirin oo waddankaas haysta mar uun haddii gacantooda laga soo furo in la sii daayo ay noqonayso oo aan soomaali sharci ay ku xitaa aanay jirin arrimaha ay fiirinayso waxa weeye dad xabsi wanaagsan ma jiro laakiin xabsiyada adduunku waa kala daran yihiin dad dhiban oo u dhiban xaaladda ay ku jiraan xabsigaas ama dad dhiban oo u dhiban meesha ay joogaan in aan ehelkooda kusoo booqan karin in aan soomaali community joogta oo booqan karta aanay jirin oo meel ka go-an soomaalida ay tahay sida hadda qolada mumbai ku xiran oo kale marka ama qolada Seychelles ama Libya marka waxa weeye uun sida loo kala daran yahay sida aan dalalka xiriirka ula leenahay sida aan isula fahmi karno ayaan ka shaqaynaynaa mooye ma ahan hadda wax la leeyahay qof kasta oo Soomaaliya xabsi ku jira dowladda Soomaaliya ka soo qaadaysa oo waddanka ku soo celinaysa oo sii deynaysa ma ahan qorshuhu noocaas maaha arrimaha aan rabay inaan xuso barnaamijka intaan ka bixin waxaa ka mid ah India oo hadda aan sheegay inaan dhowaan booqday waxyaabaha dowladda India wasiirkeeda arrimaha dibadda ka wada hadalnay waxaa ka mid ah dhibaatada ka taagan viisada dalka India oo qofka ardayga ah waxbarasho ka hela ay ku khasban yihiin inuu aado Nairobi oo viisadeeda adag tahay iyadana hotelka kharash uga baxayo qofka ardaygaana uu kaba sii daran yahay qofka xanuunsan oo raba inuu dhakhtar u aado India wasiirka markaa ka wada hadalnayna isla fadhigii aan fadhinay waxay ku ballan qaaday in viisada India laga bixin doono Muqdisho xataa safaaradooda ayadoon weli soo wareegin in xafiisan ay ka furan doonaan halkan markaan kusoo laabtayna safaaradda India Nairobi ayaa ila soo xirtay oo ii sheegtay inay u baahan tahay meesha ay soo degi lahaayeen si ay u bilaabaan hawshaas marka taasna culayskeeda inuu naga hari doono mar dhow ayaan rajeynaya markanna magaalada Cadaado dowlad goboleedka Galmudug iyo ganacsatada deegaankaasi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Galmudug waxa ay kaga hadleen sidii ganacsatada ay u socodsiin lahayd lacagta shilinka Soomaaliga oo toddobaadyadii u dambeeyay ay dhibaato ka taagneed taasi oo saameysay maciishada iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Cabdi Xasan Rooble Awoowe ganacsatada gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Cadaado kadib waxa ay shaaciyeen in hadda wixii ka dambeeya gobolada dhexe ee Soomaaliya laga qaadan doono lacagaha shilin Soomaaliga ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay aan laga isticmaali jirin bartamaha dalka taasoo sababtay in dadweynuhu ay cabasho ka muujiyaan ganacsatadii ka qayb galay kulankii maanta ayaa dadweynaha u sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan shilin Soomaaliga waxaa lagu soo heshiiyey lacagtaas inay socoto la wada qaato ama bacdu magacaygu waa calimaad jamaal geesalaqe anigoo ku hadlaya gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Galmudug codsigii badan oo loo soo jeediyey madaxda Galmudug oo iyaguna maaragtay orahdooda ay la joogaan in lacagta wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Galmudug Maxamed Axmed Faarax oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in dhammaan maamuladu ay isla qaateen socodsiinta lacagaha shilin Soomaaliga ah sidoo kalena xusay in jaangoyn loo sameeyay sarifka lacagaha wuxuuna ka digay in heshiiskaas la jabiyo dhammaan runtii maamulada waxay isla soo dhaweeyeen haddii ahaa lahayn Galmudug iyo maamulada kaleba in lacagta runtii laga wada shaqeeyo sida xalka ugu dhow ay dadkaas ku badbaadi karaan maanta number 2 go'aanka ugu horeeya wuxuu yahay lacagta shilin Soomaaliga oo hadda aan haysano isticmaalno in dhammaan laga qaato gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka si wada jira loo qaato ganacsatada ay socodsiido dadkana ay ku dukaameystaan ay ku adeegtaan waxaa isla qaatay maamul goboleedyada iyo ganacsatada runtii dhammaan waa isla qaadan shacabkana waa wasiinaynaa lacagtaas si hagaagsan loo isticmaalo waxaa jira si lacagta loo isticmaalo qodobo soo hoosgelaya waxaa ka mid ah lacagaha waxyaalaha qalqalka gelinaya sarifka kala ka mid ah in sarifku maanta